dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay markab kowdii bishan lagu afduubtay xeebta deegaanka kulule ee degmada Bandarbeyle ee gobolka Karkar, Puntland, oo ay wakiil ka yihiin Senator Daahir Ayaanle iyo ganacsade Maxamuud Shido. dowladda Mareykanka ayaa jiriif iyo xaalufin badeed ku eedeysay markabka Shiinaha laga leeyahay Lee Dong Wayu 578 kaasoo habeen ka hor lagu afduubtay xeebaha Puntland. markabkan oo ay shati kalluumaysi siisay xukuumadda Puntland isla markaana wakiiladiisu ay ku qoran yihiin Senator Daahir Ayaanle oo saaxiib dhow ay yihiin madaxweyne Deni ganacsade Maxamuud Shido ayaa lagu qafaashay xeebta deegaanka kulule ee degmada Bandarbeyle ee gobolka Karkar. Dave Harfleches oo ka tirsan waaxda amniga gudaha Mareykanka ee the USA Department of Homeland Security ayaa markabkaas oo shati ka haysta Puntland wuxuu ku eedeeyay inuu caan ku yahay jiriifka xeebaha Soomaaliya isla markaana uu xaalufin ba'an ku hayo kalluunka qaaliga ah ee loo yaqaan yellowfish tuna. David Harfleches wuxuu intaas ku daray inuu dabargo ku socdo kalluunka qaaliga ah ee yellowfish tuna ee laga helo xeebaha Soomaaliya iyadoo xaalufintiisa qayb ka yahay markabka Lee Dong Wayu 578. Soomaaliya ayaa sanadkii dhaqaale ahaan 300 milyan ku weyda kalluumaysiga sharci darrada ah taasoo halis gelinaysa nolosha in ka badan 9,000 oo kalluumaysato ah. markabka Lee Dong Wayu 578 ayaa horay xeebaha Puntland loogu afduubtay November 2024 balse waxaa la sii daayay Janaayo 2025 kadib markii madax furasho lagu sii daayay xukuumadda Puntland ayay warbixintu ku eedeysay in ay shatiyo siiso maraakiib Shiinaha laga leeyahay oo xaalufin ba'an ku haya xeebaha Soomaaliya kuwaas oo jibiyay shuruucda caalamiga ah ee kalluumaysiga dunida.